magacaygu waa Bashiir Qaasim waxaa ka mid ahay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee hadda ku sugan isbitaalka Martini. Xanuunkan wuxuu igu dhacay anigoo joogo goobtayda shaqada. Waxaan dareemay hargab yar caadi oo qaatay xaafadayda iska joogay. inta badan waxaa iska ilaalinaya dadka inay contact daartay la sameeyaan. xaaladdeedu ka soo dartay ilaa ay soo gaartay in neeftu ay aad ii qabato. isbitaallo kala tegay si muxuu ahayd xanuuno kale iyo waxaas isaga markii aan negative waxyaabo kale ka noqday waxaa ku dhiiraday inaan imaado isbitaalka Martini. alxamdulilah rabbil caalamiin waa la isoo dhaweeyey. waxaa la ii fidiyey daryeel caafimaad, kalkaaliyaal, dhakhaatiir ilaa intii aan ka noqonayay positive. xaaladdeeda hore si fiican lagu dadaalayay. markii aan positive noqdayna si waxaa la iila wadaagay runtii xikmad ku jirto oo mentally aan dhibaatada qofka bini'aadamka gaarsiin karin. waxaa la ii soo gudbiyey qayb kale oo loo talagalay dadka positive-ka ah. runtii waxaa ku idlaa meeshaas daryeel caafimaad dhammaystiran. dhalinyaro duruuf kasta oo jirtaba runtii aad ugu faraxsan inay ugu shaqeeyaan dadkooda. haddana alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa dareemaa full recovery inaan sameeyey. waxa ay dhiman waxaa waaye baryo. waxaa la ii sheegay in lagu celin doono 2 test oo si natiijada ay u noqoto ilaaha jiraada negative. alxamdulilah rabbil caalamiin ilaaha mahadle. waxaa rabaa inaan fursada uga faa'iidaysto dhakhaatiirtii runtii habeenii maalin dul taagnaa dadkooda nooga soo tegay, ilmahooda nooga soo tegay, qoyskooda nooga soo tegay inaan u mahadceliyo. aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa. waa idiin haynaynaa awaankaas. sidoo kale waxaa rabaa inaan fursada uga faa'iidaysto dadkii ii soo duceynaya Soomaalida ah meel kasta joogay. ilaahay ajir xasanaad idinka sii ducadiin ilaahay idin aqbalay. ilaahan u mahadcelinaa ugu dambeyntii. waa mahadsantihiin.